السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولها أن استعلنا هيو وأن إلهي درتسكو ولا لونيو سو هذا ميل كستاد جوجتان وإن سلامينا حمرجينا عافماتكينا يا أولادنا الله إني بركيو waxaan jeclaysanay maantay maadaama aan in badan ka hadlaynay arrimaha guurka la xiriira in badan dadku waxay isweydiiyaan oo la iska wareystaa la yiraahdaa raggii Soomaaliyeed ayaa aad looga cabanaya cabashada ugu badan raggii Soomaaliyeed ay ku dhacaysaa marka cabashadaasna waxay ku saabsan tahay maadaama raggii lambarka koowaad furiinkoodu iska badnaaday maadaama dulqaadkoodu iska yaraaday maadaama yacni gurigii joogoodii iyo dumarkii caawintooda aad u yaraatay waxa la leeyahay ragga Soomaaliyeed su'aasha maanta taalo aan isweydiinayno waxay tahay ragga Soomaaliyeed intooda badan mas'uuliyad ma qaadi karaan ama dib aan u soo laabto oo dhaho dhalinyarada xilligan jirta da'yarteenu ma qaadi karaan mas'uuliyadda dumarka Soomaaliyeed ama gabdhaha Soomaaliyeed mas'uuliyadooda ma qaadi karaan barnaamijka waxa maanta marti inoogu ah walaasheen qoraa Soomaaliyeed Shamis Cabdi Geedi oo wada taqaanaan qaybna ka ah bahda safiirka islaamka soo dhaw Shamis Cabdi Geedi dhawaa waan salaamayaa dhimaan asxaabta ku xiran channelka safiirka islaamka ma sha Allah ku barakeeyo dumarka iyo ragga iyo wiilasha iyo gabdhaha ayaan falanqayntu tahay wiilasha Soomaaliyeed xilligan jira maadaama aan aragnay horta aan hoos u galno maadaama aan aragnay guurkii inuu yaraaday waxa yaraaday kilibka hore ku sheegnaba guurkii in dhalinyaradu isu imaadaan oo xanuunkii jira saan uu soo sheegnay ha ahaato ama siyaabo kala duwan ha ahaato marka guurkii waxa yareeyay waxa kamid ah mas'uuliyad darrada ay dumarku ka cabanayaan raggay ka cabanayaan raggi waxa la leeyahay mas'uuliyad ma qaadi karaan xilligan jooga ama da'yartay hadda jirtay mas'uuliyad ma qaadi karaan oo waxa la leeyahay wiilashii waa kuwa social media dhaxyaacsan waa kuwa macnaha maxaa la yiraahdaa furitaankooda iska badnaaday waa kuwa mas'uuliyadda dumarkii aan markay guriga joogaan ilmihii iyo qoyska aan caawin karin furitaankii baa aad u batay marka su'aashan weydiina waxay tahay ragga markaad eegto waxyaabahaas oo idin isku soo keento dhalinyarada hadda jirta mas'uuliyad ma qaadi kartaa waa mahadsantahay Abu Darcaan horta haddii la fiiriyo ragga intooda badan waayadan dambe sanadihii u dambeeyay ma aha kuwo yani mas'uuliyadii ilaahay uu u xil saaray kuwo ka soo bixi kara in yar oo ilaahay u naxariista maahina waxaa arkaysaa wiil baa gabar doonanayo markii guurkii uu dhaco oo gabadhii loo soo guuriyo waxaa dhici karta in uu xataa gabadha diilkeedii xataa uu kari waynayo iyadoo waliba aan filaayo yani qofkaas lixdiisa lixaad haduu mar qabo waxa fiican in uu shaqo tago haba ku yaraatee qofta dumarka markaas way ku qancaysaa waxay arkaysaa in qofkii dadaal uu sameynayo laakiin wiilka ma ku fikirayo yani markii hore wuxuu u bartay in uu gurigooda iska joogo wax diyaarsan uu iska cuno haduusan ahayn qof markaas shaqaysanaysay teed kale waxa keenaysa in oo mas'uuliyadiisa uu gabo marka hore wuxuu ku degdegayaa guurka isagoo yani aan xisaabtamin hadhow waxa imaan karo oo ku xisaabtamin soo khibrad u lahayn guurkii waxa uu kala kulmi lahaa asoon khibrad u lahayn hadalka yani khibrad u lahayn oo guurka faa'iidooyinkiisa waxyaabaha asaga mas'uuliyadda saaran sideedaba waxa fiican marka wiilka uu guursanayo in uu fahamsan yahay waxaa jiro xeerar guurka u yaalo oo qoyska lagu dhaqo haddii taas ay mar aadan aqoonin mas'uuliyadaadi waa gabaysaa ma qaadi kartid in yar oo ilaahay taqaano oo yani fahamsan qofkan xuquuqda ay ku leedahay ma ogi xitaa ma aha wiilasha yaryarka ma aha waxaa arkaysaa niman waaweyn oo odayaal oo mas'uuliyadoodii gabay waxaa arkaysaa qaarkood dhibaatada waxaa keenayso wiilkii balwadu leeyahay wala arkaa balwadii maalintii oo dhan iska cuna habeenkii oo dhan uu cunaaya maalintii oo dhan waxa dhici karta in uu guriga iska jiifo marka meeshaas waxa ka imaanaysa mas'uuliyad daro gabadhii marka waxay isku dayaysaa in yani way ku baraarujinaysaa in uu kaco uu shaqeeyo dumarkan waa iska masaakiin qaarkood waxay bilaabaan in ay ayaga shaqeystaan oo ay shaqo bilaabaan si ay u maareeyaan waliba markii meesha ay caruur imaato si ay u maareeyaan qoyska laakiin waxa fiican
gabadha in ay ku cadaadiso in uu shaqeysto teeda kalena ninka inta yar ee uu wax ku siiyo intiisa yar waxay u goyso ugu kari waayahay anoo dib u noqonaya horta qawaamnimada quraanka sheegay iyo mas-uuliyadda horta maxay tahay dib inuu celi wax yar مسؤولية الرجال لا يقرأ مركي يقول للجرام حيتها مسؤولية ده وحيد هاي يعني جبده حقوق بدنية كلها هاي نعم وحاكمت إن وكسر بحي كرو إن وأيضا قنعين كرو إن وحاكمت إن بير كان وحي عوني لهاد مصاريف تقولين كرو إن يعني جبده هدي حنوسته دكتور وباهته إن وكسر بحي كرو نعم لكن هدي أنت سمين وايو وحدي كان مسؤوليتي لو حيل سارو جمي marka mas'uuliyadda marka qawaamnimada quraanku uu sheegayo isku duubkeedu waa inuu mas'uuliyadda markuu ciideedii ka soo qaatay wiilkan oo ciideedii ka soo waday gabadhan inay wax kasta ee nolosheeda ku saabsan inuu kaafin karo ha waati aayadii rijaal qawaamuuna cala nisaa bima fadala Allah ba'aluhum ala ba'd marka qawaamnimadaas marka waa jumla ahaan wax kasta ee gabadhaas u baahan tahay nooc kasta ay tahay nolosheeda awood leeyahay kaafin karo waa haduu awood inuu leeyahay way ku jirtaa waayahay marka ragga marka dhanka kale laga eego markii guri la wada joogo wiilasha Soomaaliyeed hadda xilligan jooga in Ilaahay u naxariisto intooda badan gabadhii sida lagu yaqaan waa yara dabeecad kulul yihiin waa yara markii waxa laga yaabaa Ilaahay wax siiyo in caloosheeda wax kalaan in ay jawigeeda isbedelo nooc kale ay noqoto marka ragga qaarkiisna markaas ayuu furitaan ku bilowdaa oo yaani 6 bilood ka bacdi sanad ka bacdi markii awlaad la helo wax bilowdaan oo nimcada iyo qoyska qurxoonaado baa waxa bilaabanaysa furitaan marka dabeecadii gabadha lagu yaqaanay maadaama marka hore dabeecada iska furfuran ay ahayd oo iska farxadsan oo iska sheekeynaysa waxba jirkeeda laga beeray jirkeeda Ilaahay wax ka beeray markii wax laga beero banaanka waxay yimaadaan ama ay gudaha ugu jiraanba waxa dhacaysa dabeecadii xoga inay yara kulkulaato gabadhii dabeecadeeda yara qalqalafsanaadaan marka ragga Soomaaliyeed xilligan joogan inta badan waxa la arkaa inay iska soo bixi karaan marka dhalinyarada hadda jirta maxaa wacay in marka ay qoysku cusub yahay hal sano gudaheedba in lagu galaya maxaa dhaca sida sheegtayba waxa ugu wacan sida sheegtayba yani maadaama gabadha isbedel uu ku imaanayo ma fahamsano ma dareemayaan yani aqligooda ma si wuxuu ku fikirayaa hatta waxa laga yaabaa in uu isdhaho kibir u yeelaysa way fiicnaan jirtay maxay yeelaysaa ha kibir u yeelaysa laakiin kaas doqon waay ama ma dareensano waxyaabahan dhacay xoogaa da'diisa iska yar mas'uuliyadda dhanba ma fahansano gabadhiina wax ku beermaayeen oo isbedel uu ku imaanayo oo gabadhii loo baahan yahay in la ilaaliyo ayada kama aha xumaan iyo nacayb kama aha laakiin waxa haysto wax ka weyn haysto markaas meeshii uu ka fahmi lahaa ee uu isdhihi lahaa yani gabadha way fiicnaan jirtay maxaa hadda saankeen asagana uu xanaaqaya meeshii waxa ka dhacaysa marka furin taas maxay ka mid tahay wuxuu fahamsaneen shuruudaha guurka iyo mas'uuliyadda saaran oo dulqaadka asaga loogu talagalay inuu u dulqaato waa ogtahay inta badana in yar maahina inta kale ragga guriga lagu jooga waa sax marka ragga lahaayeen oo lagu yaqaanaya marka yaraanaya hadii guri la wada joogo oo yaani maanta hada xanuunkan jira sida hore u soo sheegnay ragii dumarku isu yimaadeen waxa dhacday marka in ragii guriga wax ka joogaan shaqadii guriga wax laga rabo inay wax ka qabtaan ragii intooda badneed way qabal la shaqadii way soo kari laayeen rag dumarkii ka soo horjeedaan marka meesha waxa dhacday marka in kuleelka yimid maxana ana imaamunaysa namaan ana ku qaba masaada qabtid macuntada ku karinaya maxaarka ilmaanka dhaqaya yani magruum wala xogaa wareer baa ka dhacay furitaanka xilligan sida daraasado badan lagu sheegay furitaankii aad u batay dadka waliba gabdhaha iyo wiilasha reer galbeedka jooga ama Afrika aan joogin Yurubtaas iyo meelahaas kala jooga furitaankeed aad u batay sababtoo waxa keenaysa wuxuu san aqoon u dhaxda ka galay marka soo lama dhigi karo iyadoo ruuxeeda gurigii hawshii ka jirtay oo laga rabo in laga qabto hooyinka Soomaaliyeed soo barin wiilasha waa la dhihi karaa horta sideeda waxa fiican marka hore horaan u soo sheegay in uu labada qof ay fahamsan yihiin waxyaabaha imaan karo
sabarka iyo dulqaadka inaa badisid waay sidii hore matiida oo yacni markii gurigiina aad joogtay sida walaalka oo kale ula dhaqmaysid asagana sida walaashiisa oo kale walaashiisa wuxuu rabu dhihi karaa waa isla dhasheen laakiin qofka xushmad ay kala mudan yihiin dhibaatada ugu weyn ee keenta waxa waa isfaham la'aanta labada qof haday isfahmayaan qofkan meesha u socdo uu fahmay kana meesha u socdo uu fahmay meeshaas wax dhibaato ah marka iimaanaysa mas'uuliyad darana kama iimaanaysa waxa jirta oo kale wiilasha waxa arkaysa ayagoo wax dhehaysanin gabadhii loo kaalmin oo lagu daraa xataa marmar markii uu biilkii gabo waa la siinaa meesha xataa haday awlaad imaato gabadha hooyadeed wax walbo ay siinaysaa waxay ka fikiraysaa yani qoyskaas habku qoyska gabadhaada quruxda badaysa dib kugu soo noqon mar kale marka waxaa jirta nacsiib badan oo aan ka faa'iideysanin marka Soomaali laakiin lama dhihi karo aad bay ugu yartahay macnaha hooyo Soomaaliyeed oo gabadheeda ama aaba Soomaaliyeed gabadhiisa ku kabaya ninka qaba ku kabaya aad bay u yartahay lama dhihi karo way yartahay intii yareedna wiilashu way ka faa'iideysan laayihiin wiilashii baan ka faa'iideysan karin hooyooyinka ama aabayaasha u soo jeeda in gabadhoodii aysan dib ugu soo noqon oo awlaad hesho ninkaasna ay dib u degnaadaan hataa biilkii ka kaafinayaan hadii hataa khilaaf u soo kala dhaxgal hooyadii way xalinaysaa waxyaabaha khilaafka keeni ay dabooleysaa marka wiilka doqonka ma fahmaayo waxa soo dhan kibru ka sii qaada hatta waxa dhici karta in uu ugu hanjabo waa ku fura wallahi macna sabab uu siraha amal gabadhaana lagu yani gabadhaani kugu hayaan oo yani waxay ku diri la ayeen bilku waxay u bixinayaan gabadhaani raba inay u haysid amal inuu asagu ku fakaro niid aan isu shaydaan ugu sheekeeyo oo sira gabadhaana inta aad korkooda ku bil lahayn inta asaga tag oo macna gabadhaani kugu dul hayaan inuu siraho yani si qaldan u fakiraa sideedana aadanaha khayrka ma u roonabo xumaantu ka fakarayaa wuxuu jecel in la cadaadiyo maayn si kale oo loo guuleysan karo ma jirto waayahay waa ku mahad celinayaa waqti qaaliga aad nasiisay iyo si aad nooga qaybgashay barnaamijkan qaaska ah oo ugu magac darnay ragga ama dhalinyarada ama da'yarta xilligan jooga ma ka soo bixi karaan mas'uuliyadda ay ku qaadeen ballanta xagga Rabbi in ay gudan karaan waajibaadka ka saaran in ay guri iyo mustaqbal gabadhan la wadaagaan oo ay ilmo isu dhalaan ma awoodi karaan jawaabihi aad ka hesheen walaashii Samis Cabdi Geedo oo ila falanqeynaysay inta ayaan jeclaanay inaan ku soo gabagabeeyno fadlan faafi khayrka oo ka qayb qaadan sida khayrka loo faafi lahaa wabillahi tawfiiq wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh